xildhibaanada waxaa leenahay hala taageero mooshinkaas, hala taageero qof wanaagsan oo 2 sano harsan waddanka gaarsiiya dimuqraadiyad ala soo saaro ha loo diyaargaroobo. annaguna dibadda ka joogi maanada Faysal Cali Waraabahay xiiso badan baan ku leeyahay Soomaaliya. waan la shaqaynayaa inay cid wanaagsan timaado, waan la shaqaynayaa inay cid wanaagsan Somaliland si walaalnimo loo kala baxo oo 3 dal oo walaala Djibouti, Somaliland, Soomaaliya xiriir wanaagsan yeelano, aynu United Nations wada galno oo IGAD wada galno, bal qofka leeyahay Somaliland xora oo wanaagsan dhibaato Soomaaliya leedahay hay taabsiyo marka ana fara ka qaaday. marka wax leenahay mooshinka ha socdo, dimuqraadiyadu ha socoto, distoorku ha socdo ma leenahay oo hambaliyana dadka keenana. xaaladda hadda uu maraya Soomaaliya marayso iyo magaalada ficilkan uu sameeyo farmaajo iyo qura khatar kuma yahay, isirka Soomaalidu uu khatar ku yahay, Soomaaliya geeska degan oo dhan khatar ku yahay. ninka maanta Eritrea iyo Ethiopia iyo Confederation la samaysanaya Soomaaliya kala daadsan, ninka dekedaha Soomaaliyeed oo mid qura aanu xukumay isagu u saxay, ninka maanta istaraatiiji la sameeyay dowlad goboleedyada baabiinaya saniyadii xaqiisa guriga sare baabiyay, haddana baarlamaanka u soo jeesaday. marka ninka wuxuu ku shaqeynaya maskaxdii 1980s hore waan u sheegay waxaan yiri ilmaha yara wuxuu duubaa ilmaha ka weyn ficilkiisa hadduu qalqaali noqdo. inankan wuxuu duubay uu ku barbaaray camalkii Maxamed Siyaad Barre, tiibu doonaya dalka inuu ku celiyo shaqadii iyo ficilkii Maxamed Siyaad Barre iyo istaraatiijigii jiray iyo hogaankii jiray. qaladka weyn ee la sameeyay wuxuu ahaa doorashadiisii inaan yaroo waddanka ka maqnaa oo garanay complex meesha ay tahay arrinta Soomaaliya taagan tahay aan garanayn. xamaqnimada marka loo doortay waa consequence-keedii baa weeye. marka waxaanu aragnaa inuu faraha kala baxaa weeye haddana magaranaysaa South West doorashadeeda. waanu hambalyeynaa guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal, wuxuu noqday nin qiimo leh, nin integrity leh buu noqday, nin sharciga ilaaliya uu noqday. waa garab taaganahay. Soomaaliya waxay u baahan tahay dhabiyaadu u baahan. durbaan baa hadda la wadaa uu wadaa ninka la yidhaaho boqor burhaan ma la yidhaha, ilaah baa boqor subxaana wa tacaala oo qabiili ah. durbaanka daaroodiisamku wado ee ka socda ee wado gobolka magaranaysaa Garowe ee fiday hadda Soomaali khatar buu ku yahay. waxaan leenahay halaga weentoobo durbaanka qabiilka oo waddanka ayaan lagu celinin 1990. waxaan leenahay dhalinyarta fayda Soomaaliya uu ku soo ururiyay ee aqalgoodu yahay aynu aarsano galorigii reer hebel aan soo celino madaxnimada adeer waxaas ma soconayso. yaa la kabkabi ee Shariif Xasan Sheekh Shariif Axmed iyo Xasan Sheekh ay soo kabkabeen maanta uu baabiyey. farmaajo waa baabiyey. ninkaan diyaaradda ka degeen ee dadka dhulkooda hagaajistay ee dawladaha iskala dhigaya ee heshiisyo la soo saxanaya aanu fulin kareen ee Soomaaliland u diiday inay noolaato ee Soomaaliland xooga saaray inuu adduunka ka soo xidho. muxuu ka soo xidhi karaa Maxamed Siyaad Barre SN ka soo xidhi kara waayay. anagu waxaan leenahay colaad Soomaaliyeed ma qabno. Soomaali intaanu gelin cid gelisay ma jirto taariikhdan awoowayaasheeda midnimada annagaa keenay, awoowayaashii baa keenay, annagaa ku khasaarnay. imkaan Soomaali culum hay'adda gurigeedan ka talinaya ninka la guriga kama talin kara anaa ka talinaya. waxaan